Asalaamu calaykum. Soo dhawaada. Qaybtan topigan ayaa waxaan uga hadlaynaa bishan hadda aan ku jirno 15 ilaa 17 shirkii wadamada dunida ugu awooda badan oo loo yaqaano G7 ay ku qabteen dalka Faransiiska iyo ajendayaasha ugu muhiimsanaa ee looga hadlay. Yani hadaa qaybteena ka soo qaadano shirkii sanadkan Group 7 ama G7 wadamada loo yaqaano ayaa ay ka dhigay mid ka mid ah ajendayaasha ugu muhiimsanaa ee shirka looga hadlo. Yani hogaamiyaasha dalalka waaweyn iyo madaxda shirkadaha teknolojiyada ayaa iyaga ku wada hadlay mustaqbalka AI-da ama garaadka macmalka ah, amniga, tamarta iyo sharciyeynteeda. Marka waxaa xusid mudan meesha madaxda kasoo qayb gashay inay kamid ahaayeen madaxda OpenAI iyo kuwa kale oo fara badan ayaa kamid ahaa. Marka qodobada ugu muhiimsan looga hadlay shirka ayaa ahaa AI-da ana loo arkayay inay teknolojiyada ugu saameynta badan 10 sano soo socda ay tahay. Dalalka G7 waxay ku wada hadleen sida loo sameyn karo AI ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo. Waxaa si weyn looga hadlay baahida korontada iyo xarumaha xogta ama data centerska AI-da loo qabo. Shirkadaha teknolojiyada ayaa sidoo kale codsaday sharciyo dhiirigelinaya hal abuurka iyadoo la ilaalinayo badbaadada bulshada. Sababta ugu muhiimka u tahay ayaa ah AI waxay saameyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha, shaqooyinka, waxbarashada, caafimaadka iyo amniga qaranka. Dalalka awooda badan waxay u tartamayaan hogaaminta AI-da caalamka. Go'aanada marka lagu gaaro shirarka noocan ah waxay saameyn ku yeelan karaan ama sida AI-da loo isticmaali doono mustaqbalka. Marka maxay uga dhigan tahay dadka caadiga marka hadirtaan adeegyada AI-da waxay noqon doonaan kuwo aad u horumarsan oo si ballaaran loo isticmaalo. Waxaa jiri doona sharciyo cusub oo ilaalinaya xogta iyo xuquuqda isticmaalayaasha. Inkastoonan mar haddii adiga waxaan internet waaye dambiyo ama waxyaabooyin qaar aad gashid cid ku ilaalinaysa aysan jirin lagu soo qabanayo. Dowladaha awooda badan dunidana sidoo kale Mareykanka ay kamid yihiin mar hadday u baahdaan inay xogtaada helaan si walba ay heli karaan sababtoo wax walba iyaga gacantooda ku jiraan. Marka shaqooyinka cusub ee AI-da la xiriira ayaa soo bixi doona halka qaar ka mid ah meesha ay ka bixi doonaan ama isbedel ku imaan doonaan. Marka gabagabadii wadamada oo loo yaqaano G7-ka waxa waaye shirka G7-ka oo loo qabtay wuxuu muujiyay marka in AI-da aysan hadda ahayn kaliya arrin teknolojiyada balse ay noqotay arrin siyaasadeed, dhaqaale iyo amni heer caalami ah. Dalalka dunida ugu tunka weyn ayaa hadda u arkay AI-da inay tahay furaha tartanka mustaqbalka. Marka adigu fikirkaaga nala wadaag commentiga sideen u aragtaa in AI-da sanadkan noqotay qodobada ugu muhiimsan wadamada ugu dhaqaalaha iyo awooda badan hadda adduunyada loo yaqaano G7-ka inay ka dhigaan qodob ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee shirka looga hadlay. Aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.